waxa laga soo bedelay tiin baro gobol dhibaato badan oo aafaah gobol dhibaato badan ayuu ka yimi laakiin gobol fiican uu soo galay markaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Naasir Caydiid Maxamed oo ka hadlayay munaasabad uu xilka kula wareegayay barasaabkii hore ee gobolka Sanaag mudane Maxamed Axmed Caalin Timbro ayaa waxa uu gobolka Sanaag uu ku tilmaamay inuu yahay gobol aafaa oo dhibaato badan hadalka ka soo yeeray wasiirka ayay dad badan siyaabo kala duwan u arkeen gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobolka Sanaag waxaanay u arkeen inuu yahay hadal lagu kala qaybinayo gobolka Sanaag sidoo kale barasaabkii hore gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo isla munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in gobolka Sanaag ay ka soo hayaameen dadkii aqoonyahanka iyo waxgaradka ahaa isla markaana ay hadda iskugu soo hadheen dad garanaya inay aarsadaan hadallada ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ee ku saabsanaa in gobolka Sanaag uu yahay gobol aafo oo dhibaato badan waxa nasiib darro ku tilmaamay qaryaqaan guuleed difaac sidoo kalena kamid ah hadboorka iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag waxaanu guuleed difaac sheegay inay nasiib darro tahay xukuumadii looga baahnaa inay mideyso gobolada Soomaaliland sidoo kalena ay horumarkooda ay ka shaqeyso ay qaar kamid ah ku tilmaanto aafo isla markaana ay kala qaybso bismillaahir rahmaanir rahiim hadallada barasaabkii wasiirku waxay ahaayeen hadallo ka soo baxay saraakiil xukuumadda ka tirsan marka waxa laga soo qaaday inay yihiin mowqifka siyaasiga xukuumadda ee ku aadan gobolada bariga Soomaaliland waxayna halis ku yihiin horumarka goboladaas ee xagga ammaanka marka wasiirka ammaanka uu qaabilsan dalku yiraahdo goboladaas waa aafo hay'adaha caalamiga ee maagashada midkoodna ma tagayaan meel aafo ah oo mashaakil lagu sheegay kaasina waxay si weyn u saameynaysaa ka horumarkii bulshada mas'uuliyadda dawladda ay kolka inay gobolada wixii dhibaato jira ka qabato maamul xumo weyn baa gobolada ka jirtay eedeedana xukuumadda ale maalmo ka hor waxa saas si dhow hadlay mas'uul ka tirsan xukuumadda isaguna gobolka Saraar saas oo kale uga dhigay meel fog oo qofka la geeyay qof maaragtay dhibaato mutaysto oo kale hadalkiisu weeyay marka waxa weey wax systematic ah socda oo lagu hagaajinayo gobolada bariga xukuumaddiina ka imanaya anigu ma arko hadal laba qof ka yimi waxaan arkaa hadal xukuumadeedii wasiirku waa wasiirka amniga oo qaabilsan dalka wasiirka xogeenku xukuumadda golihiisa wasiiradu ka tirsan yahay xukuumaddu iskamay fogeynin hadalku uu yiraahdo waa hadal xukuumadda tiriye waxaan ka soo cararnay wax walba xamar loo doonto haddana qofka laascaanood jooga ka ceergaaba jooga ka baran jooga iyo ka buuhood la jooga waxa la leeyahay qasab ku kaale Hargeysa adeeg dawladeed bixin karto haddana qofka ku mushaar qaato deegaankii jooga si isu gali kartaa kii wasiirka ahaa shaqadiisa ahaydna inuu ID kaadhada gaarsiiyay dadka dawladnimada gaarsiiyay booliis liga booliiska furaan wuxuu leeyahay waa masiibo meesha waa aafo kolka xitaa deeqdii ummadii u imanayay buu ka hortaagay maalgashigii buu ka hortaagay qofkii maalgashiga ma meel aafo ah oo dagaal ka socdo la leeyahay waa aafo waa catastrophe ba dadka loogu turmay af Ingiriis yaa tagay adigu ma tagi lahayd ma tagis maalin dhaweeyto dhowr cisho ka hor wasiirka waxbarashada gobolka joogay ilmaha yar buu su'aal weydiiyay wuxuu ku yiri maxaad wax u baran weyn ilmaha yar waxa markii la eegay waxa la yiri meesha ugu dhow 10 kilomitir 30 kilomitir 60 kilomitir saddex jiho ayay u kala jiraan goobaha waxbarasho dawladdii goob waxbarasho ilmaha yar u goyn weey hadhow ilmaha yar bay ku canaanaysaa ku caayisa mas'uuliyadda mas'uuliyaddeeda inay goobta wax gabageyso tusaale siinay degmada Garadag oo koonaheeda u sheegay wax 200 kilomitir u jirto caasimadda Ceergaabo maxkamadda gobolka ugu dhow waxay 200 kilomitir labada qof ee dhulka ku murma xagee isla tagayaan meel isla tagayaan ma haystaan saldhigyo booliis ma jiro gobolka intii soo badan saldhigyada booliis way ka fayeen markaad magaalada Ceelfin ka qaadid la Ceergaabo 90 kilomitir baa isu jiraan dhinaceeda barid markaad raacdid 90 kilomitir hal saldhig kuma yaalo oo booliis dadka jooga markay isku qabtaan maxay xagee ku kala baxaya taasaa dhibaatada dagaalada qabiilada iyo colaadaha keenaysa ma mas'uuliyad darro dawladeed ba mise waa shacabku leeyahay qaryaqaan guuleed difaac oo hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay in gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ay ka aradan yihiin baahiyaha aasaasiga iyo waliba sidoo kale nidaamka dawliga oo baahi weyn ay u qabaan dadka gobolada dhibaato far badan baa haysata gobolada dhan waa soo maray dib weyn baa haysata xagga horumarka xagga adeegyada dawladeed baa ka haysan muddo wax ka filanayaan xukuumadda leh waa meel aafo ah oo masiibo ah oo dhibaato ka taagan ee dadka insalka caayida u geysanaysa haddana cadeynteedii la hayo in goobta waxbarasho 20 kilomitir 30 kilomitir u jirto iyadii goobta waxbarasho u geyn kara laada marka dadka gobolada waxay isweydiiyaan oo tashadaan baan weydiin lahaa Soomaaliland sababtii ugu weyneed goonisaga loogu soo noqday waxay ahayd in adeegga dawladeed uu dadka ku dhawaado maanta ID kaarka dhalashada muwaadinimada cadeynaya Hargeysa yaala database-kiisa qofka baasaboorka u baahda maanta waa inuu Hargeysa yimaada wax kale iska daayo waraaqda laysanka wada marista qofka driving license leeyahay qofka gaadiidka wada la siinayo imaanta la bedelayo Ceergaabo kama bedelan kartid Hargeysa timaad aniga aabahay Hargeysa u yimi soo driving license uu soo bedesho marka dadka maxaad ku eedaynaysaa dawladnimada meeday kumee qofka adeegii dawladeedba lama joogo ma arko haddana saas Soomaaliland ku yahay dalkiisa ku difaacda maalin walba dawladdu iyadu dawladnimada la dareerinay
dowladnimada ummadda ha gaarsiiso adeeg wanaagsan ugu shaqeyso neutral dowladdu ha noqoto dhexdhexaad gobolada ha noqoto wasiirku ummadda ilaahay oo dhan buu wasiir u yahay markuu gobolada qaar hiifayo yuu wasiir u yahay ma deegaan gaar wasiir u yahay si wasiir xukuumadda magacaabatay cabinetka ku jira golaha wasiirada ku jira afku nugula hadlay af shakhsiyan ma qof shakhsi suuqa jooga hadlay ma hada waxa hadlay shakhsi madaxweynuhu magacaawday ammaanka dalka u dirtay liibaan cismaan cali telefishinka Ariel Hargeysa